ورحمة الله وبركاته. مقعي أبو بكر محمد وحنا هاي حكاية جود أو سي وقاعدين سوبريم كونسل وحن هل كان سوون مد إنان warbixin yar oo kooban oo ku saabsan shirkii ayaantan Sacuudiga maanta aan soo nimid OSC wajiga in aan waxyaabaha isla meel dhigay ama laga hadlay wax kamid ah aan meesha ka muujino sida awgeed goluhu waxa uu maanta oo taariikhdu ay tahay 19 bisha 3 2022 ay isugu yimaadeen in ay go'aan kama dambaysa ka soo saaraan runtii in uu chairman-kayga uu bixiyay shir jaraa'id uu bixiyay qodobadii uu raacay baan rabaa inaan sii raaco anigoo ku waafaqaya isla markaasina warbixin yar oo dheeraad ah ku sii daraya si waxyaabaha mugdiga ku jira ee meesha uga baxaan golaha wuxuu isku raacay in Ahmed Ali Mukhtar oo governor hore wajeer ah in uu noqdo musharaxa la soo qaaday ee u tartami doona gobornimada wajeer 2022 goluhu waxa uu sidoo kale isku raacay Maxamed Khadar Mukhtar Ciilow in uu noqdo MCA-ga golaha deegaanka ugu tartami doona ama ka qayb qaadan doona tartanka wajeer township sidaad ogsoontihiin laba gabdhood ayaa ku tartamayay positionka woman rep wajeer county honorable Fatuma Gedi and honorable Nasri Sahal sidaad ogsoontihiin ama ay dhici kartaba inaad baraha bulshada ka maqasheen waa la codeeyay codayntii xildhibaanad Fatuma Gedi Cali waxay heshay 16 cod xildhibaanad Nasri Sahal waxay heshay 15 cod inta markay tahay waxa ka yimid waxa timid in la isqanciyo annagana sida ogsoontii waxaan ku shaqeynaa muwaafaqo isqancin isu dhimrin isu dajin iyo wax iska dhaadhicin iyo inta badan inta laga maarmi karo inaan la codayn sida awgeed ayuu goluhu dib ugu yar dhigay go'aanka kama dambaysta ah laakiin codka ee dhacay sida ayuu ahaa waxaan filayaa in goluhu isku soo noqon doono haddii ilaahay yiraahdo dib isugu soo noqon doono la iskuna waafaqi doono qofkii markaas haddii laga codbadiyayna markaas la qancin doono ama si kale loo qancin doono wabillahi tawfiiq waxaan ugu baaqaynaa dhammaan reer wajeer in ay nabadda iyo wanaagga iyo daris wanaagga iyo kalgacaylka iyo wada shaqaynta ay ka shaqeeyaan waad mahadsantihiin wabillahi tawfiiq kan waxa jiro runta ah processkan wiiga dulu socday runtii wiiga uu socdana waxyaalo badan la kulanay ay kamid tahay sida ogtiin OSC constitution-kooda uma ogolo in la codeeyo taas oo tahay hadii lagu qasbo codeyn inay dadka ku soo noqdaan shacabkii oo mandate-ka u dhiibay ay dhahaan codeyntii oo secret ballot-ka ayaan rabnaa inaan codeyn horta looma ogolo laakiin anigoo eegayo midnimada cidda eegay ayaan ogolaaday in codeyn la sameeyo laakiin sida sharcigooda ah ama ay shaqada ku qaban jireen waxay tahay inay tahay interviews marka la qaado results-ka uu dadka heleen miiska la soo saaro results-ka laga hadlo la dhaho qofkan intuu helay qofkan intuu helay qofka hadalkiisa muuna anfacay wax qabadkiisa seeway qof miya aan dooran karno waxyaalo badan in la isweydiiyay ahayd runtii consensus-kii waa la diiday dad baa buuq ka keeneen dadka buuqa keeneen ujeedadooda waan ognahay waana garan karnaa laakiin anagoo taas eegayno votes ka aan helay waxay tahay 96% aan helay
68 kaasaan rabnay marka in la tangaazeeyo marka buuq iyo waxay keeneen qalalaaso si on layskugu raacin chairmanka dhib badan bay mariyeen oo ogahay marka labaad waxaa la yidhi marka gadaal ha loo dhigo gadaal wiigaa loo dhigay maanta ay noqotay maanta day noqotay marka waxay ahayd maanta in la hadlo oo la isweydiiyo interviewskii wuuna hor yaallaa dadkina waan weydiinay maxaa la yidhi codada waan interview aan ka qaadnay maxay la tahay tii marka mee waxay dhaheen waxaan rabnaa in labada ruux loo codeeyo haddana waan ogolaanay codayntii annagoo og inay dastuurtii OAC ay ku jirin codays oo codayn hadday imaado inay la rabo ay ku noqdaan shicibka weynaa ee Wajeer South ay ka codsadaan mandate inay siiyaan oo codayn looga ogolaado tii ma dhicin sharciga waxaa waaye sharci waa in la bedelaa haddana dadkii shalay ku dhiiban baa ku bedeli kara laakiin annagoo fiirinayno midnimadii iyo waqtigana uu nagu socdaa waqti ma hayno runtii isjiid waan ogolaanay waxaan dhahnay bal hal aado codayn alxamdulillah codayskii soo baxay 16 helay 15 hesh waana lagu dhawaaqay 3 jeer afaanay ka codsatay in loogu celiyo laakiin anigu waxaan dhihi lahaa tartan walba qof areyni qofa aadhici anigu maanta dayga reyn lahayd gacantaan qaban lahaa ogolaan lahaa marka ayaga interviewgina waan ugu reeyay gurihii la ridina waan ugu reeyay marka waxaa iska wanaagsan dadka in la jijiido maaha in la ogolaado hore aan u kacno aan u soconno wixii kale marka la fiirin karo la isla qaban karo la isla qabto laakiin haddii la mindi ku taag guddigii marka in oo annaga ma rabno waxyaalaha guddiyaha kale ku dhacayo inuu guddigeena ku dhaco ma rabno kala tagga dadkeenana ma rabno laakiin waxaa fiican haddii lagaa reeyay inaad ogolaatid laakiin haddaa dhahdid aniga ligama reynin waa ilaa haddana ha lagu noqdo doorasho 3 jeer lagu noqonayo weli lama arkin marka doorasho markii lagu noqdo agent meesha ku fadhiyo mar labaad lagu noqdo mar saddexaad marka afaraad loo noqonayo waa sharci ka tag marka taana diyaar uma yihi marka aniga Wajeeran women rep wahay reer Wajeer oo dhan aan kura ka rabaa reer Wajeer South aan kura ka rabaa wixii aan qabtay ama waxaan ahaad ummadda hortaala marka isjiidka intan oo kale waqti in la iska dhumay maaha marka waxaan dhihi lahaa wixii dhacay waa la ogyahay runtina waa la ogyahay both interviewgina waan ugu reeyay kurihina waan ugu reeyay marka midda u furan wadada kali waaye haddii midnimo la rabo resultka aan ogolaan hore aan u soconno aniga sidaan u fahmay ama noogala sheegay guddiga Secretary General ka noo sheegeen isku noqoshada waxaa isku noqosho oo in la qanciyo loo baahan yahay qofka laga reeyay si anagoo wada jir ah aan ku socono ma ogiye isku noqosho oo interview kow la qaadayo ma maxay la resultka miiskay saaran tahay marka haddii la isku soo noqdo oo la qanciyo diyaar aan hanay taas laakiin isku soo noqosho oo interview ugu dhamaaday kuran ugu dhamaaday aniga horta waqti ma hay campaign waa kaas uu bilaabmay qorshayga waxa waa inaan meel walba Wajeer County ku taala aan lugta mariyo reer Wajeerna in laga xigo ma leh dadkina wixii aan qabtay ama dadkii aan gacan qabtay ama magaalada wixii aan ka qabtay darin walba hor taala marka Soomaalida kalena inaan orodno iskaashanoon aan isla jaan qaadno baa kulleeyto hadda aan isu diyaarinaya sida arkaysan gabadhayda waa ka way taagan yihiin waqtina ma hay